magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle gaar ahaan xaafadda Baryare waxaa laga furay timajaro caalami ah oo la magac baxay Baryare Barber. Waa fursad shaqo abuur ah oo loo sameeyay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle. Timajarahan wuxuu kaga duwan yahay timajaraha kale ku yaala Jowhar. Waxaad ka helaysaa qalab casri ah, adeeg casri ah iyo nashqad waliba adiga dalbado lagugu xiiri doona. Waxaan ka mid ahay dadka halkan u yimid in loo hagaajiyo timaha. Waa baabar cusub oo laga furay magaalada Jowhar. Waxa baabarkan loogu magac daray Baryare. Iyaduna ay halkan ka shaqeeyaan dhalinyaro loo sameeyay shaqo abuur. goobta dhismeeda ayaa loo qurxiyay si casri ah, indhaha ayaa muraayad muuqa soo arki doona wixii qurxan ku horseeda timajaraha caalamiga ee Baryare. Haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada loo sameeyay shaqo abuurka iyo kuwa macaamiisha ayaa waxay la hadleen TV-ga Hirshabelle iyaguna u mahadceliyay Xasan Heekal oo ah shakhsiga isku xilqaamay inuu shaqo abuur u sameeyo dhalinta ku dhaqan magaalada Jowhar. magacaygu waa Abuukar Cabdullaahi Maxamuud. waxaan joogay Baalbara timajaraha. waxaan shaqo abuur noo sameeyay Xasan Heekal oo ku maasan yahay dhalinta wuxuu noo dhaliyay iluu noo furay real xaafadeed baaskeen balaayada timo ku jireen haddaan Baalbiri aan noo furay waan ku shaqaysanaa. waxaan koobanahay 6 ruuxood aan meeshan ku joognaa. nin oo maalintii aakhadane oo madax jarin ma jiro, qof walba oo jara madaxa wixii Ilaahay noo calfan waan ka helnaa. inkastoo uu cusub yahay oo mar dhow la furay oo muddo 3 bilood oo 3 bir uu furan yahay, nin walba wixii Ilaahay oo talgalay wuu qaataa woona helaa. nin oo imaaday oo soo wax jarin iska noqday ma jiro. shaqo abuurkan waxaan u sameeyay nin walaalkayna ah oo la lahay Xasan Heekal. ninkaas aan u sameeyay asaga ayaan gacan ay qabtay inaan meesha aan ku shaqeysano oo dadkan oo dadka magaalada joogan inaan u danayno oo asal u danayno oo anagana u danaysano. waa timajar aad iyo aad u fiican kana duwan timajarayaasha ku yaalo degmada Jowhar. waxa uu dheer yahay agab kala duwan. waxaa ka mid ah sida waxa yaalo timajarahan TV. waxa kaloo jiro decor aad u qurux badan oo aad u jeedaan sida yani halkan idinka muuqato. timajarahan waxa ka howlgalay ilaa iyo 6 ruux. saad u jeedaan 6 kuraas ayaa taalo. marka aniga waxa ka tirsanahay macaamiisha ku xiran halkan maadaama uu timajaraha cusub yahay, laakiin waxaan ka mid ahay macaamiisha lagu bilaabay laguna furay Baalberigan cusub. Yusni Maxamed Axmed, Hirshabelle TV, Jowhar.